xisbiga moodel oo ah mid har iyo habeenba u xaydan sidii uu bulshadiisa wax ugu qaban lahaa intii karaankiisa ayaa sidii caadada u ahayd Ramadaan kastaba wuxuu shalay salaasadii 17 bishan Maaris kuna beegnay 28 bishan barakaysan ee Ramadaanta xisbiga moodel wuxuu xaruntiisa dhexe ku qabtay munaasabad uu ku ciidsiinayay caruur agoon ah iyo kuwa dan yaraba si ay maalinta ciidda ula wadaagaan qeyrkood farxadda ciidda xafladan oo ahayd mid lagu guddoonsiinayay caruurta yaryar xaqal ciidkooda ayaa si qurux badan u dhacday iyadoo ay ku sawirnayd farxad iyo qosolba wajiyada caruurtii yaryarayd ee la guddoonsiiyay xaqal ciidka sidoo kale waxaa la qaybsaday farxaddaasi waalidkood oo sheegay inuu kar iyo walwal badanba ka dhacay waxaa hadal kooban ka soo jeediyay munaasabadaasi gudoomiye ku-xigeenka xisbiga moodel mudane Yuusuf Shide waxaanu yiri sida tan bismillahir rahmanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ilaahi ba mahadle maanta oo bisha Ramadaan ay tahay 28 ay tahay waafaqsana 17 Maaris 2026 inaan iskugu imanno mar kale siyaash santraalkii xisbiga moodel sidaan ognahay walaalayaal xisbiga moodel waxa uu ka dhigtay sunne amba caado amba dhaqan u ah waqti kasta oo Ramadaan laga soo baxo inta karaankiisa in uu dadka itaalka yar leh agoomaha ah reer Djibouti in uu ka kala qayb galo ciidda iyo ka farxinta ciyaalka agoomaha ah taayo sunna fiican ah uguna tala galay markaste in uu xisbigu uu ka shaqeeyo inuu u dhawaado dadkiisa danyarta uu ka warhayo ay caadada xisbiga tahay maantana waa qaybihii kamid ah oo ku qabanayno siyaashka dhexe ee xisbiga dad xaafadaha kala duwan ka yimiday oo agooma ah ina maantana lagu guddoonsiinayno halkan hadii la yiraahdo xaqal ciid waxa loo yaqaano waxay kaga qayb galaan maalinta ciidda ee weyn inagu soo dhow ina dadka wax loo tarana oo loo markaasi loo dhawaadana waxyaabada waaweyn ee Ilaahay oo inaga raali noqonay weeyaan bulshadana ay u samaysantahay Ilaahay ugu tala galay in ay ahaato bulshad ama dadka mas'uuliyiinta ama dadka markaasi in dheergaradkiiba ay yihiin in ay had iyo jeer ay u dhawaadaan dadkooda ay ka warhayaan waxyaabada walaalayaal aan dadka aan loogu gargaarayana waa wax ka yimiday wax meel kale ka yimiday maahine waa qorshe xisbiga uu dhigtay oo sanad kasta ku tala galo oo dadka xisbiga taageerayaashiisa iyo mas'uuliyiintiisu ay iyagu iska soo ururiyaan ay jeebkooda ka soo gooyaan ciyaaladooda ka soo gooyaan si ay dadkooda ay ula noolaadaan ciyaalkooduna ciyaalka dadka xisbiga ay dhaleen ay ula mid noqdaan qayb kamid weeyaan annaku moodel hadaan nahay hadii taladan qabanana waan qaban doonaa insha Allah waan rajaynaynaa waxaan qorshaha iyaga kamid ah inaan ummadda reer Djibouti aan gurmad u noqono kana saarnana inay had iyo jeer loo baahayo ay ku noolaadaan baahi iyo wax ururin maanta waataan karinay laakiin anagu taa inaan ka saaraan rajaynayna intaas waa intaan markaasi qorshaha xisbiga iyo had iyo jeer sidaan ugu tala galay waxa oran lahaa fariin hadaan u diri lahaa dawladda amba maamulka talada wadanka haya waxaan aragnaa had iyo jeer waa gaar ahaan bariyahan dambe ina meelaha lacag fara badan lagu kharash gareeyo dhar akhtara la soo iibiyo durmaan la tubo hantidii ummadda iyo wixii dadku lahaa markaasi lagu ciyaaro ayadoo la leeyahay kaambaani baan ku jirnaa doorashan qabanina la leeyahay marka waxaan oran lahaa doorasho ma jirtaa
doorasho siday waxay tahay la garanayo doorasho madka waxa uu lahaa maad iska badaysiin oo lacagta aad ku ciyaaraysiin ee darkan iyo waxaad ku soo iibinaysiin ee qaariniga kamid ah oo aad ugu lacageynaysiin ee loogu subayo inaad gidaafada naga gurtiin dadka danyarta inaad ugu gargaartiin ayaa ka fiicnaan lahayd oo idinkana waxay noqon lahayd baan leenahay marka bal si kale u fikira doorasho Djibouti kama dhacdo waa la ogyahay waa la garanayaa xilliga ay dhacayso cidda helaysa intay ku helayso waa wax la yaqaano markaas waxaan odhanayaa markaas ku dhawaaqo waan helaa inta iska tiraadiin markaas sida walba oran jirteen waxaan tida iyo xoolaha aad ku ciyaaraysiin dadka u baahan dhulka u baahan marka inagana waxaan leenahay fariinta baan dirayaa dhulka galiya oo madiina u naxariisan oran lahaa marka walaalayaal kuwan qaybin doonaa inagana waxaan idinka rajaynaynaa inaad si fiican insha Allah waalidiinta aad nooga aqbashiin oo nooga gudnootiin waa intii aan karinay wax fiican baan idin jecel lahay inta in ka badan hadaan karaynana waan tiri lahayn inta aan ku soo koobo waan salaamay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh عيد مبارك عيد مبارك علينا عيد مبارك علينا عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولله ما تنتين وديبتا هاي عيالكينا